iyadoo sanadihii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo ay sii kordhayeen dhulboob xoogan oo lagu hayo dadkaan ku haybta ahayn Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha iskiisu doortay isla markaasina dadkaasi lagula kacay xarig jirdil iyo handadaad ku saabsan kaarida dhulkooda ayna aad u adkeyd in ay mas'uuliyiinta maamulka u gudbiyaan cabashooyinkooda iyagoo ka cabsi qabo dil xarig iyo tarxiil ayaa waxaa mar kale muuqaal naxdin leh isla markaana xambaarsan cabashooyin xoogan oo ay u gudbinayaan maamulka Jubbaland madaxdooda soo gudbiyay laba dhibane oo kamid ah xogsatada magaalada Kismaayo kuwaas oo ka cabanayo dhac dhul baaxad leh oo ka dhaxeeyay iskaashatada ka xogsata magaalada Kismaayo oo ay u geysteen askar ka tirsan maamulka Jubbaland Joolaqa Xirsi Daahir Xaashi iyo Maxamed Daalaco oo kamid ah iskaashatada dhaca loo geystay dhowr mar oo kalena lagu dhibaateeyay arinta dhulka ayaa si dareen iyo naxdin leh uga hadlay dhaca loo geystay dhulkooda waxayna sidoo kale ka cabanayaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka sida xogayaha dowladda hoose Rashid Mudulow Maxamed Naasir Guuleed taliyaha booliska Jubbaland iyo gudoomiyaha degmada Kismaayo Maxamed Ibraahim Yuusuf Timajile bismillaahir rahmaanir rahiim anigu magacaygu yahay Joolaqa Xirsi Daahir Xaashi ahna nin naafaho dhaawac afar jeerna la dilo isbitaalka afar jeer aan galay dhulkaas awgiis aan ugu tagnay Axmed Maxamed Islaam oo u yeeray saddexda nin oo degmo oo joogta maamulka hoose joogta ay kala yihiin Maxamed Naasir iyo Timajile iyo Rashid Mudulow oo yiri dhulkaas soo hubiya xamaaligu uu leeyahay nimanka xamaaliga masaakiinta ay leeyihiin oo biyaan teerku ka dhisay way tageen waa soo hubiyeen wuxuu yiri dhulka waxa iskale xamaaliga xamaaliga iskale dhulka yaa iskale xamaaliga iskale saddex jeer buu ku celi markuu ku celiyay wuxuu yiri maxay u baahan yihiin in la xaaqo waxa la umado nin intii markhaati u qabsada waxa waaye soo hubiyay markuu yiri waxa qabay way tageen ayaga ayaa la wareegay dhulkii waxay kula wareegeen waxay ka gateen niman ganacsadayaal waxaan mar saddexaad ka codsanaynaa Axmed Maxamed Islaam